السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أصحاب شرفت لما الكسوات كل شيء. It's me, it's her, it's you. Anyway, and waxaan wadaa wiilkii baraha bulshada qabsaday ee yiri maxamed saciid anaa gabadha qaba anaa gabadha qaba oo xaaskayga ay tahay oo haddana maxaa la yiraahdaa soo laba rogleeyay oo yir gabadhii aniga ma qabo excuse me isha xiga galana malana waa arrin uguba macnaha xaqiiqdii waa arrin uguba oo la yaab leh oo mucjisadeeda wadata anigu meel nimanka u socdaan qaarkood inay waalihiin inay fiyooyihiin ma garanayo mid buraha bulshada gabadhii uu dhalay uu soo geliyo oo yiraahdo codkeeda soo geliyo oo waatana hooyadeed bay wacday oo ninkii hooyadeed gursadaa ka qaban waayay xaaskaygii weeyaan 8 ciyaal ay dhashay 3 baa dhimatay 5 baa nool sheeko baraleydaas inta baraha la soo fariistay wiil iyo gabar isguursaday kala cayriyay oo gabadhu ka eedeeyay inuu qabo waa kana midkaana gabar ayna abtidiisa walaashiisa ay kala tageen 4 years ago ayuu hadda wuxuu leeyahay aniga qabo baraha bulshadana ayuu soo geliyay kama soo hadlin arrimihii hore because I don't want inaan ku degdego kuwii horeeto laakiin tan waan ka soo hadlay because hadaladiisii ayaaba isjabiyey isagii ayaa banaanka iskeenay waana arki doonaa وجامع سعيد محمد السلام عليكم مقعيق وجامع سعيد محمد قمر مادي قاري أنا قبه وانا حاسكيجي أنا وحيقي قتكتي إني حمر هويدد وكحينس هويدد باتر وان كحينايا فأنا إيقي قتكتي إلهينا إيقي قسريو ماركتي oo aan aniga maartay aan ku dhaaran karo kitaab jaamac ku maray inaan furin ee xaaskayga tahay oo meel aan dalqad igaga dhacday aysan jirin laakiin hadii dee la dhahay gabar nin qabo anaga khasab ku qabno waan maartay dawlad saxniye taabanaya because hadii aan malaysan inaan Mareykan joogo Muqdishona waan joogaa excuse me waa aragtin wuxuu ka hadlayaa inuu kitaab jaamac u marayo ama u mari karo inuu gabadhan qabo qamar maxaa la yiraahdaa ay saxaaskiisii tahay maxaa la yiraahdaa xamarna ay ku aaday meesha ay aaday xamar ku mehersatay wiilkana ay u aaday inay hooyadeed u kaxayso sidaas ayay uga soo tagtay isaga iyo caruurtiisii waa sida uu ku antacoonayay oo ku doodaya baraha bulshada kusoo geliyay this is a jaa'ifo this is a khalad this is a humiliation this is a waxa weeyaan eebayn uu la maaga gabar walaashiisa in abtidiis oo waxa weeyaan kaligiis ma aha waa laga soo shaqeeyaa arrin laga soo shaqeeyo weeyaan tan waa iska gudbinayaa tiisa kala in tusaya oo uu ku doodahayo macnaha gabadhan adinkana waa arki doontiin macnaha waa kana asaga kalan hadana waa haysto sila daawano السلام عليكم مقعي وحالة لها جامع سعيد محمد أحمد عبد السلام عليكم مقعي وحالة لها جامع سعيد محمد مقعي هوريتنا وحالة لها أحمد عبد القادر حاج سعيد كيميا حلبالة gabaraan hore isu qabno waaye gabadhayda hore waaye caruurta ii dhashay waaye haddana de waa laba qof oo isku adreesanahay ilmahayga anaa haysta waa u jeedin hadalku ku hadlayo iyo hadalku shalay ku hadlayay farqiga u dhaxeeya gabadhan waa kala tagnay isma qabno waan furay caruur bay ii dhashay laakiin waa gabadhan isku meel ku noolnahay isku adrees laa yaa anfac who cares the address umada dhan isku address way noqon kartaa meel ayaan ka digi karaa addresskan still waan haysan karaa warqadii waa igu soo dhici karaa because waa ilmo abti ilmo caruurna waa isku hayaan so waxa ka dhaxeeya connectionkaas hadlaynkaas waxa ka dhaxeeya ciyaalka oo labadooda dhexdooda yaala of course wax kale kama dhaxeeyaan qasatan haddana waxay yihiin maxaa la yiraahdaa dad wada dhashay oo ilmo abti ilmo eedaa
marka taasna waa ka dhexeysaa wada dhalashaa ka dhexeysa so waxaa garata waa gabadhan waa guursatay macnaha wiilkan waxa riixayay oo balaayada wado oo ka daba shaqeynaysa gabadha qaar la dhashay walaalaheeda oo raadinaya lacag raadinaya macnaha ninkii guursaday lacag ka raba waxaas sooriyada sometimes maxay tahay sooriyada gabar walaasha ayaa u humiliyeynaysa u caybeynaysid oo jaa-ifada intaas ligaad ugu geysanaysid aabaraha bulshada wareejinaysid ilmahayga hooyadood waaye wax dhib iyo buuqana ma kala jiro maamar yar rooblena waan maamo ila deganayd waaye oo gabadha hooyadeed waaye maamo aan wada nooleen waaye aniga qamarna 2018kii baan kala dhammaanay marka dad ilmo isu hayaan nahay marka ilmahaas haddaan isu haynana marka waxa waaye dee relationshipku marna ma uu warnimayahow war waxaan waxa weeyaan 2018kii baan kala tagnay waa 4 years ago because it's a 2022 baa lagu jiraa at this moment bal ninkan waxa weeyaan saan isku ceebeynayo baraha bal gabar kama waayin magaalada macnaha gabar xitaa magaalada kama waayin mana raadsanayo gabadhan ceebe buu isleeyahay jaife buu isleeyahay macnaha sidan oo bilaa kuu qurxiya gabar miyaweys iyadaba hesha mid kaleeto ma doonatid xamarna hadaa ku nooshaa maraykanna ku nooshay maxaa kuu diiday maxaa ku daba dhiga gabadhan muxuu jaifeynaya maxay ka haysataa wax ka dhexeeya male waa baxday nin bay soo gursatay sida asaga oo kale ay u gursatay maxaa ka khaldan waxaa u baahan tahay quraansaar dhakhtarka waalidoo lagu geeyo iyo banishment oo maraykanaa ku noolaa maraykanka laftarkiisa lagugu xiro xabsiga lagu geeyo sharciga lagula tiigsado because damage baa geysatay damagekii ugu xumaa marka soomaalidii waxa weeyaan macnaha umadanba wada dhalan oo guriga isku keenay ayay ahaayeen labadii hore waxaa saas isku sameynay kana waa close waa wada dhasheen dad wada dhashay weeyaan xaruur isku haya kala tegay maamada eedadiis tahay marka baantaa soo riixaysa wiilkan waa lasoo riixaya gadaala laga soo wadaa macnaha waxaa la leeyahay lama siinin lacagtii sooriyada gabadhan ay kula xaal horaa u daawateen waxaa hadalka aniga hadda idinkaga sii dheereeya ma lahan laakiin waxa weeyaan wax laga xanaaqo laga caroodo inkastoo tii hore ma soo gelin aniga laakiin tan waan soo geliyay waxaan usoo geliyay hadal xumadiisii horeeto iyo tudu miduu hadda ku hadlaaya waa midaanba is ogeyn waa ninaan is ogeyn oo isla socon oo kala socda wuu kala socdaa kala daadsan yahay asaga iyo waxa ka dambeeyaba aniga ku xanaaqo waa wax laga xumaado laga xanaaqo because uu jaa-ifo weyn weeyaan uu geystay gaf weyn uu geystay weeyaan kaabe wax weeyaan waan ku dheeraaday like subscribe share saara videogayga intaasaan uga baxayaa don't forget like share subscribe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta waa intaasaan idinku dhaafay insha allah